कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना waa qiso aan malaysanin xanuunka ay leedahay markii aan soo xasuusto run ahaantii waan iska ilmeeyaa sababta guurka ii diiday ayaa ah midaan marar badan ayay idhaahdeen midkan waa madhale laakiin hadda waxa ii joogta 2 carruur oo mataana ah anigoo aan xaas lahayn waa ogahay inay igu tilmaami doontaan dilaagii jacaylka waxaan ahaa qofkii ugu dambeeyay ee la hadashay intii adduunka saarneed anigoo si xad dhaaf u jecel ayaa si wanaagsan ula hadli waayey waayo waxa ii caddaa shaqada daaragtarnimada aan xilligaa ku cusbaa fariintii ay reebtay intaysan dhiman ka hor waxaan jeclaa in qisadeedaan ka sameeyo filim laakiin way ii suurtagali weysay wax walba ku aadan qisada ku dhacday director Karan Johar ayaan kuu soo turjumi doonaa haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe inoo saar sidoo kale like inagu dhiirigeli fikirkaaga hana la wadaag waa inuu muhiim magaceegu waa Karan Johar waxaan ku dhashay magaalada Mumbai gudaha dalka India sanadkii markuu ahaa 1972 waxa ay soo maray maalmihii ugu quruxda badnaa ee dunida waxa igu dhacay qiso jecel ilaa hadda xasuus igu reebtay nolosheeda xilligii aan ku guda jiray waxbarashada ayaan waxaan isbaranay gabar oo mar walba aan qorshe ku dhiirigelin jirtay waxay noqotay saaxiibadeeda qaaliga ah sanadooyin kadib waxaan u qaaday jecel xadaaf ah waxay ahayd farxadii nolosheeda waayo dhiirigelinteeda ayaan heerkan hadda taaganahay ku gaaray waxay jecleed in markasta ay aragto anigoo faraxsan waayo waxay dhigi jirtay farxadaada waa qayb ka mid ah wadnahayga dhaqdhaqaaqiisa ugu dambeydii dunida ayay igu cileysay waa ogahay inay soo mari dooneen gabar la mid ah markii aan ku guda jiro shaqada oo aan qorayo sheekooyinka aflaanta waxa igu soo dhaco dhiirigelintii farxadii ay siin jirtay intii adduunka saarneed रात दिन की मेरी दिलकशी तुमसे है जिंदगी की कसम जिंदगी waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah taariikhdu ee 23 Abriil sanadku ahaa 1990 ayadoo xanuunsan hospitaalka ku jirta ayay soo wacday waxayna iga sugaysay inaan kula hadlo hadallo ku dheehan dareen jacayl laakiin waxaan kula hadlay hadallo aan bini'aadanimo ahayn markii aan soo xasuusto waan iska ilmeeyaa run ahaantii hal wiig ayaan ka ahaa waayey waayo si xad dhaaf ah ayaan u jeclaa waan wacay waxa iga qabtay shakhsi kale wuxuu igu yiri way ii sheegtay walaasheeda in maalin uun soo wici doonto kadib buu igu yiri adiga bay ku sugaysaa bal u kaalay waa soo baxay waxaan imid gurigeeda kadib waxaa lii kixiyay halkay joogtay intaas socday waxaan islahaa guri bay kaligeed joogtaa laakiin sheekada sidaan maleynaya ma ay noqon ee waxaa lii geeyay xaafado wada qabuuro ah markaa buu igu yiri waatan gabadha jeclad oo ah walaasheed waxayna isku dishay adiga dartaa waayo markii ay ku soo wiceysay waxay kuu sheegi rabtay inay xanuunsan tahay laakiin adiga si wanaagsan baa ula hadli weeday marna ma isma lahayn jecel intaasoo sanaad wateen baa hal maalin oo aad qalad ka shaku waayi doontaa noloshaada kadib wuxuu ii dhibay warqad ay qortay intaysan dhiman ka hor waxaana ku qornaa sida tani waan hubaa haddii aad akhriso warqadda inaad ilmeyn doontid laakiin mid ha ilaawi inaan horey kuu dhahay farxadaada waa qayb ka mid ah wadnahayga dhaqdhaqaaqiisa run ahaantii waxaa tahay qofka keliya si xad dhaafkaan u jeclahay waa ogahay inay jeceshahay laakiin mar kale ma dhici doonto inaan koriba dhibkaaga waxaan ka sii qaadi jiray farxad igama ahayn naceeb aan kuu qabo mar kale kuma dhihi doono maxaa qabatay maanta waayo dunida wax walba ayaad ku arkaysaa waan hubaa inaan noqon doonto directorka ugu fiican India waxaan kaa codsanayaa in qalbi kale dhaawac u geysan waayo qalbiga aad buu u yaryahay ma xamili karo culays ka weyn waxaan kuu rajaynayaa in la'aanteeda aad noolaan doonto run ahaantii aad ayaan u ilmeeyay ka soo qaad adiga haddii ahaan lahayd kuma farxi lahayn geerida boqoradaada waatan qisada igu dhacday waana sababta ii diiday inaan guursado waxaan ka baqaa in qalbi kale dhaawac u geysto wax walba oo tiraahdaan waan ogolahay waayo waxaan ahay shakhsi dambiga kale xidigta u jeclaa जब से तुझको जाना है मैंने अपना माना है मगर haddii aad ku cusub tahay channelkan please subscribe inoo saar sidoo kale furo gambaleelka si aad u hesho muuqaal waliba ku saabsan qisooyinka aktarada fikirkaagana la wadaag waa inoo muhiim mahadsanidin कभी चांद खिले तो मेरे
खुशी तुमसे है, जिंदगी की कसम, जिंदगी तुमसे है। तुम ही मेरी आंखें हो सुनी, तन्हा राहों में चाहे जितनी दूरी हो, तुम हो मेरी बाहों में। मगर आना इस तरह तुम कि यहाँ से फिर न जाना। कभी शाम ढले तो मेरे दिल